القلق دعي ولا يدي أيوة بدل كسبقتين ساستي تاي أنا جا هي ركلا بدنا لقطي سوري صاحب يال waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogta iyo wararka ugu dambeeyay dagaal qaraar oo saaka ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Masaajid Al-Guduud saaka waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay halkaas weerar qarax ku bilaawday ku soo qaadeen taasoo ugu dambeyn kooxda Al-Shabaab u soo wargashay inay la wareegaan gacan ku haynta degmada Masaajid Al-Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe saacadana idin hadlaya gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa hadda waxaa ka arimanaya kooxda Al-Shabaab halkaas oo ay maanta ugu qudbeeyeen dagaalyahanada shacabkii deganaa degmada Masaajid Al-Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida caadiga ah gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Masaajid Al-Guduud waxaa dega beesha Abgaal ayaa inta badan waxa lagu xantaa inaysan ku dhiiranin dagaalka Al-Shabaab iskana dhicin karin kooxaha Al-Shabaab maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya uu booqday degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo madaxweynaha beeshiisa degto madaxweynaha ayaa beeshiisa ugu tagay bogaadin iyo dhiirigelin si kooxda Al-Shabaab ay ula dagaalamaan in madaxweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe saakeena kooxda Al-Shabaab ay la wareegaan gobolka Shabeellaha Dhexe qayb kamid ah waxay muujinaysaa niyad jab weyn kadib markii kooxda Al-Shabaab ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyada ka dhanka fariisamaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose Al-Shabaab ayaa maalmo ka hor sidaan oo kale waxay la wareegtay degmada Aagudheegle ee gobolka Shabeellaha halkaas oo weerar sidaan oo kale oo qaraxyo ku bilaawday ay ku soo qaadeen Al-Shabaab weerarada joogtada ah ee bishan Ramadaan ay xoojiyeen ayaa waxay u suuro gelisay inay la wareegaan laba deegaan gacan ku hayntooda saaka ay la wareegeen degmada Masaajid Al-Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo isbuucii hore kooxda Al-Shabaab ay gacan ku haynta degmada Aagudheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ay la wareegeen in Al-Shabaab dhaqdhaqaaqyadooda gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose ay xoojiyeen ayaa sababtay dagaalada laga gaabiyay iyo duqeymaha joogtada ah ee lagu hayay kooxda sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in Al-Shabaab ay ku sii siqayaan degmada Al-Kawsar iyo Aadan Yabaal halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degmada Aadan Yabaal waxaa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda sare gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote oo halkaas iyagu u jooga dardargelinta dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoo halkaas uu ku booqday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uguna tagay dhiirigelin iyo bogaadin si dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab ciidanka u dardargeliyaan oo xoojiyaan balse nasiib xumo saaki ay Al-Shabaab dib ugu soo laabteen degmada Masaajid Al-Guduud gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo Al-Shabaab uu ahayd fariisan weyn kadib markii dhawaan kooxda Al-Shabaab halkaas laga saaray balse dagaalka saaki Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Masaajid Al-Guduud ayaa u muuqday in Al-Shabaab ilaa haatan ay ka samri laayihiin maadaama kooxda Al-Shabaab Masaajid Al-Guduud ay u ahayd fariisan ay ka abaabulaan dagaalada iyo weerarada ay ku qaadaan xarumaha dawladda ee ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalkii saaka Masaajid Al-Guduud ka dhacay Al-Shabaab waxay nolosha ku qabteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo askar iyagoo barahooda bulshada kooxda Al-Shabaab saacadihii la soo dhaafay ku baahiyay sawirada iyo muuqaalada ay ka duubeen raggii saaka ay ku qabteen dagaalkii ka dhacay Masaajid Al-Guduud waxaa nasiib darro in maalin walba kooxda Al-Shabaab ay weerarayaan fariisamo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waxaa nasiib darro sidoo kale in weerarkan Al-Shabaab ay soo qadayeen waa la sii ogaa ayaa lagu leeyahay balse waxba kama soo jiraan ayaa laga soo qaaday in Al-Shabaab halkaas ay soo weerari karaan balse Al-Shabaab ayaa weerarkii dabagalka ahaa ay halkaas ku soo qaadeen ugu dambeyn u suuro gelisay inay la wareegaan Masaajid Al-Guduud halkaas oo waliba nolosha ay ku qabteen askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga Al-Shabaab ayaa barahooda bulshada waxa ay ku baahiyeen sawiro bahdilaad oo askarta Soomaaliyeed bahdil ay u geysanayaan iyagoo waliba muuqaalo ka duubay bahdilaad ah waxaan ka codsanayaa intaan la soo gaartay inaad subscribe channelka like na share gareysid aad iyo aad ay u mahadsantahay